waalidiin waayeel waxgarad madax dhaqameed iyo maamulka degmada Garadag iyo macallimiinta iskuulada wax ka dhigta dugsiyada hoose dhexe iyo waliba sare iyo guddiga horumarinta waxbarashada Garadag ayaa isugu yimi kulan balaaran oo laga tashanayo horumarinta waxbarashada ee degmada Garadag iyo sidii deer lagu dhisi lahaa dugsiga hoose dhexe ee degmada Garadag iyadoo la adeegsanayo nidaamka iskaawaxa uqabsada ugu horeyn waxaa madashayba furay uqaal waayeel macallimiin oo dhammaantood hay'adaha kala dambeeya sheegay sidii dugsiga hoose dhexe loogu soo wareejin lahaa deer bahri warsaqna min dayibad baa ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala binaaniga waa karaameeyay ilaahay bayna karaameeyado ina sharfay isaannimada iyo binaadnimada karaama ah waxa ilaahay makhluuqa buuray makhluuqa ugu karaama badan ugu sharaf badan bayruna haddana ilaahay subhanahu wa ta'ala diin buu ina siiyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala binaadnigii uu karaameeyay ayaa qaybsamay qaybo badan baa waxay noqdeen kuwa aan ilaahay garanayn oo aan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xidhnayn oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aan xidhiidh la lahayn oo allihii abuurtay caasiyay qaar baa waxay noqdeen qaar majuusiyiin ah oo qorraxda caabuda oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahooduba qorraxda yahay nabadgelyadu waa furaha nolosha haddaan nabadgelya jirin waxbarasho ma jirto caafimaad ma jiro biyo ma jiro waa meel cidla way ku mahadsan yihiin guddidan horumarinta waxbarashada ee degmada ee heer wasiir inay soo qabanqaabiyaan taa waxaan idin leeyahay dadweynaha iyo waalidiinta ardaydu waxay leeyihiin laba macallin waa ka halkan ugu yimaado macallinna waa waalidku haddii aanu ardaygiisa kaantaroolin oo waxbarashadiisa kaantaroolin oo xilligiisa kaantaroolin kan halkan jooga ee macallinka ahay waxuma dhigi karo macallinka koowaad waa hooyada iyo aabbaha marka hooyo iyo aabe waxaan idin leeyahay aan ogaano ardaygeenu halka uu 7 fiidnimo iyo 7 iyo 1 maalinimo uu ku maqan yahay intaas weegaynta tan horumarinta degmada annagu waxaan u leenahay maayarkaana sheegi doona waxaanu kaga qayb gali doona dalka Soomaaliland oo dhan ay ku kala badnaayeen ayaa saameeyay arday iyo waayeel iyo bulshada ganacsiga iyo guddiyada oo cid walba way ka qayb qaadatay wayna si wanaagsan bayna ardayda u sheegayay iyo barnaamijka joodhan u jireen marka waxa jiray guddida markaanu ahayn siyaabo wax u dhaqaaqaan iyo siyaabo wax u dhaqaaqin baa kala jira sida uu sheegay hadii aan cid lagu tiirsanaado ka baxsan degmada waxa ma socdaan haddaanad adigu iska bilaabin oo markaad adigu iska bilowdo ee sheegto waxa aad kaga qayb galayso markaad sheegto ayaa ka dhinacaaga fadhiyaana wax qaadanaya marka muhiimadda koobaad ee aan uga jeedaa waxa weeye qof waliba isagu cid uu sugine wixii uu kaga qayb qaadan karayo jaajuurka la inoo sheegay kun ha laga bilaabo kun boqol iyo waxaas ka gayoon maayaan oo iskuulkaas oo dhan kun ha laga bilaabo ha la isku qoro yaan laga baqin taa markaan ka imaado dugsiga sare baahiyaha ka jira ee hadda dhismaha iskuulka aad iyo aad baan u hambalyeynaa aniga ha la igu qoro 400 iyo 80 xabo jaajuur ha la igu qoro faadmo soobiye baa loo yahay maxaa looga warwareegaya 100 shilin bay inoo qabanaysaa ee dhaha anigu waa ikhtiraacaya oo bilaabaya 200 oo bulukeeda baan bixinay dagaalkii baa cuslaaday min aldiin bay noqotay inaan mar labaad ku soo noqdo oo waxa ii muuqday xabaddan si waxaan looma ridin dulmariyay u badan tahay ragga badidiisuna ma ridin marka inaan mar labaad hoosna u rido korna u ridaa baan u soo noqday kelmadda koowaad waxaan halkan aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa gabadhan walaalo halkan fadhida caashii la leeyahay $500 bay bixinaysaa insha Allah bismillaah kariim saabka ducadana ku dara kelmadda labaadna anigu inaan wax qarsanayay aan la moodi oday jeeso meesha yaala inaan hayde waa la yaqaan dadkuna wuu ogyahay labadeeda boqol bulukeedkana waa miiska bankooda guddiga horumarinta waxbarashada ayaa ka hadlay munaasabada oo ka sheekeeyay ahmiyadda ay leedahay iskaawaxa uqabsadu iyo wax wada qabsigu hadalka iyadoo la iga dambayn doono waxaanu maanta isugu yeedhnay in barnaamij baanu sameeynay barnaamijka waa idin soo gudbinaynaa waxaanu doonaynaa inaad wax ka qabataan tusaale ahaan qorshayaasha iyada ugu horeeya waxa ka mid ah dugsigan aynu hadeer joogno dayr ma leh
waa aragteenoo deyr ma leh ilaa 2007 meel aanaan deyr ka codsan hadday wasaarad tahay iyo hadday hay-ada tahay meel aanan ka codsan iyo wasiir aanaan u gudbin ma jiro cid wax ka qabatayna ma hayno sidaa darteed waxaanu qorshaysanay haddaanu nahay guddiga waxbarashada in waxqabadka laga bilaabo dugsigan hoose dhexe dugsiga sare iyo wixii kale lagu soo daro dugsiga hoose dhexe waxaanu qorshaynay in deyr loo dhiso deyr in loo dhiso baanu qorshaynay haddaanu nahay guddiga horumarinta waxbarashada waa barnaamijyada aanu hindisnay aanu doonayno inaa fulisaan sidee baa lagu dhisayaa waxaa loo dhisayaa deyrkaa waxaa loo dhisayaa dadweynaha degmada garadag iyadoo hadalkana laiga dambayn doono waxaanu ka doonaynaa oo ka codsanaynaa inay ku deeqaan qalabkii deyrka lagu dhisi lahaa waxaana lagu yidhi markii aanu wastaadinta u dirnay iyo injineerada 12 kun oo xaboo bulkeeti baa ku baxaya iyo 220 midho sibidha baa ku baxaya bacdi waxaan aad u jecelahay inaan idinka sheekeeyo oo ah isku tashiga aan ku bilownay dad yaroo kooban waxaad ogeydeen dugsigii sare in ay saamaysay duufaantii dhaweyd ee gobolada galbeedka iyo gobolkeena qaybihiisa kala duwan waliba dhinaca xeebaha uga badnaadee ay saamaysay dugsigaasi waa muddo dayacnaa wax kasta waa soo galeen heer wuxuu gaadhay in albaabada suuliyada lagala baxo calaashaan in dee macni ammaanka iskuulku uu khalkhal galo intaa ka bacdi cid kasta waa laga qayliyey cid kasta waxbaa loo qoray waa socon weyd waxaan ku bilownay 22 arday oo ka baxay dugsiga sare ayaan ku bilownay in aan u kacno alxamdulillaah rabbil caalamiin ahay waa nagu asturay iskuulkii maanta waa shaqaynaya gacanna waxaanu ka helay maamulka degmada oo qayb laxaad la ka qaybtay ka bacdi markaan u bandhignay baahida taalla iyo waxay ka qayb galiyaan oo dhan sidaana iskuulkii maanta wuxuu ku noqday iskuulka ugu bilicda wanaagsan gobolka iskuulka ugu ammaanka wanaagsan ayuu ku noqday maamulka degmada Garadag oo hadaladiisa kala duwan ayaa ku dhawaaqay deeqaad ka qayb qaadan doona dhismaha deyrka iskuul iyagoo waliba sheegay markasta garab taagnaan doona waxbarashada hawl guud ahaan Garadag oo dhan iyo inta hoos timaada wadan ugu jirto waxaanu ka qayb qaadan doonaa deyrka dugsigan hoose dhexe marka anagu waxaanu ku bilaabaynaa insha Allah anagu aan ka hadhi doonin 2000 ee bulkeedka ugu horeeya ayaanu ugu bilaabaynaa inta kalena waan marba waan daba gelinaynaa waxa weeye marba soo noqonaysaa laakiin 2000 ugu horeeya baanu ku bilaabaynaa anaguna dhammaan dadkii lacagta bixiyay iyo dadkii bulkeedka ku daaqaynay iyo kuwa hadeer damacsan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Abdi Salaad Jama wararka telefishinka Sahan degmada Garadag